Waa horraantii 1976, nolosha bini'aadamka iyo siday u noolaayeen waxay ahayd mid ka gedisan tan haatan jirta dhinac walba. Wax badan oo aad u sahlan maanta waxay ahayd xilligaas mid aad u adag ama aan suurtagal ahayn in qofka maskaxdiisa ku soo dhici karin. Isgaadhsiinta ugu fiican ee waqtigaasi jirtay ama la awoodayay in la helo waxay ahayd taleefannada guryaha oo aad qaali ugu ahaa bulshada dhexdeeda. Tanna waa bidaayaddii ama hordhacii caalamka tiknoolajiga iyo war-isgaadhsiinta, iyadoo maalmo ka hor Bill Gates iyo Paul Allen ay dhammaystireen programming language-koodii ugu horreeyay ee bilowgii PC-ga ama personal computer-ka. Abriil 1 sanadii 1976 waxay ahayd markii ay Steve Jobs iyo Steve Wozniak ay bilaabeen aasaaska shirkadda Apple. Labadan nin oo ahaa saaxiib waxay kulmeen 1971 waxaana isbaray nin kale oo labadoodaba la ahaa saaxiib lana odhan jiray Bill Fernandes. Markii ugu horreysay ay bilaabaan inay midoobaan shuraakana noqdaan waxay bilaabantay markii Steve Wozniak oo ahaa cabqari xirfad u leh electrical engineering oo weliba ahaa qof isagu wax isbaray, uu farsameeyay mishiin yar oo taleefannada adduunka oo dhan lagu wici karo si lacag la'aan ah, kadibna ay bilaabeen inay ku iibiyaan lacag yar oo jaban, taas oo markii dambe soo jiidatay Steve Jobs. Markaas wixii ka dambeeyay, wuxuu Jobs bilaabay inuu kula taliyo inay aasaasaan Uncommon Company ama shirkad ay iyagu leeyihiin, dhaqaalena ka sameeyaan. Iyadoo ahayd tiknoolajiyaddu mid bilow ah, kombuyuutarkii ugu horreeyay waxay ku farsameeyeen geerash ku yaalla xaafadda reerkii soo korsaday Steve Jobs, maadaama aanu midkoodna hayn wax kharash ah oo ay ku soo gataan wixii hardware ay u baahan yihiin, dabadeedna ay ugu farsameeyaan shaqadana u bilaabaan. Waxay ku fekereen inay ka soo amaahdaan wixii qalab ay u baahan yihiin dukaan gada qalabka electronics-ka lagu magacaabi jiray Karamat Electronics, taasi oo ahayd waddada kaliya ee u furan. Waxayna ballan qaadeen inay ku soo celinayaan lacagta muddo 30 cisho gudahooda. Intaas wixii ka dambeeyay, waxay habeen iyo maalinba ku fogaanayeen guntigana u xidhan sidii ay u dhammaystiri lahaayeen kombuyuutarkan ay bilaabeen. Dadaal dheer iyo shaqo adag ka bacdi, waxay farxaddoodii u horreysay kowsatay markii ay dhammaystireen kombuyuutarkoodii u horreeyay uguna magac dareen Apple I. Qiimaha lacagta lagu gadayay ama markaasi lagu iibinayay waxay dhammayd $666, isla markaana wixii intaa ka dambeeyay waxay iska bixiyeen lacagtii lagu lahaa. Intaa wixii ka dambeeyay, waxay u guntadeen geeddi-socodka ay ku sameynayeen horumarkoodii si ay ugu tallaabsadaan soo saarista kombuyuutarkoodii labaad. Sanadii 1977 waxay ku guuleysteen inay soo bandhigaan kombuyuutarkoodii labaad, kaasoo la odhan jiray Apple II, oo qaab ahaan iyo muuq ahaanba ka duwan Apple I. Storage wax lagu kaydiyana waxa uu ahaa laba nooc oo kala ahaa cajaladaha yaryar ee wax lagu duubto iyo Disk II oo ahaa floppy disk drive. Waa mid aad u arki karto inuu kombuyuutar yahay oo isla markaana lagu soo kordhiyay keyboard, mouse, shaashadda kombuyuutarada. Waxaa kaloo lagu xidhi karayay printer-ka lagu daabaco warqadaha, wuxuuna noqday kombuyuutarkani mid albaabo badan u fura. Intaa wixii ka dambeeyay, waxay noqotay Apple shirkad jirta oo yeelata shaqaale u shaqeeya, waxayna safka hore kula tartantay shirkado kale oo soo saarayay agabka kombuyuutarada sida Microsoft, IBM iyo kuwo kale. 1984 oo ah sanadun ka hor markii ay Microsoft soo saartay Windows, Apple waxay noqotay shirkaddii u horreysay ee samaysa kombuyuutar leh operating system graphic user interface, oo macnaheedu yahay inaad klik gareyn karto wixii aad rabto. 1985 waxaa shirkadda ka dhex aloosmay buuq iyo muran, kaasoo ka dhashay suuq-xumo la soo diristay shirkadda. Iyada oo eedda oo dhan dusha laga saaray Steve Jobs, waxaa shaqadii ka tegay oo iibiyay saamiyadii uu ku lahaa saaxiibkii Steve Wozniak, oo ku eedeeyay Steve Jobs inuu u wado shirkadda qaab khaldan. Kadibna kulan ay yeesheen saamileydii shirkadda ugu sarreysay, waxay cod buuxda ugu gacan taageen in Steve Jobs shaqada laga xayuubiyo, oo ahaa ninkii koowaad ee shirkadda aasaasay. Intaa kadib, wuxuu aasaasay shirkad uu ugu magac daray Pixar, oo ah shirkad qaabaysa filimada animation-iska ah, waxaana ku guuleystay awards
ama jaahisado aad u badan. 12 sano uun markii laga joogo xilligii Steve Jobs shaqada laga ceyriyay 1997kii, waxay shirkadda Apple la soo diristay khasaare aad u xooggan iyo maalmo madow oo ay ku dhowaatay xaraash kadib markii ay shirkadda Microsoft soo saartay Windows 95 horraantii 1995kii, iyadoo Windows iibisay in ku dhow 8 milyan oo koobi oo ah Windows 95 shantii wiig ee ugu horreeyay. Taasina waxay keentay in dib loo sasabo Steve Jobs sidii uu shirkadda gacan uga siin lahaa, ama aynu si kale u nidhaahne uu shirkadda u gacan qaban lahaa, iyadoo ay ka dhiman tahay 90 maalmood waqtigii shirkadda albaabada loo xidhi lahaa lana xaraashi lahaa. Waxaa ku soo laabtay Steve Jobs, madaxii sare ee shirkadda. Steve Jobs isagoo iibsaday intii badnayd ee saamiyada shirkadda, isagoo ahaa nin hibo u leh maamulka iyo ganacsiga, wuxuu isbeddelo ku sameeyay shirkadda 1998 oo ah hal gu'g kadib xilligii uu Steve Jobs ku soo noqday shirkadda. Waxay Apple farsamaysay dabkana ka soo qaaday kombiyuutar cusub oo loogu wanqalay iMac, suuqana keentay, kaasoo noqday 1989kii kombiyuutarkii ugu fiicnaa uguna beecaama iibka badnaa gudaha dhulweynaha Mareykanka. 3 bilood ee ugu horreeyay, dakhliga soo galay shirkadda waxa uu noqday mid aad uga batay isu-geynta waxay shirkaddu iibisay 3 sano ee ka horreeyay farsamaynta iMac, iyadoo uu sii xoogaystay magaca shirkadda Apple. Bishii Tobnaad 2001, waxay shirkadda Apple iclaamisay iPad oo ah device yar oo lagu shubo laguna dhageysto muusigga, wuxuuna noqday mid soo jiitay indhaha caalamka. Isla sanadka gudihiisa, waxay Apple soo saartay operating system cusub oo la yiraahdo Mac OS X, oo ah mid aad loo qurxiyay loona naqshadeeyay, waxayna ahayd markii macaamiishii ku xidhnayd shirkadda Microsoft u soo wareegeen shirkadda Apple. 2 sano kadib, waxay Apple soo saartay kaydka muusigga ugu weyn adduunka, ama Music Library ee iTunes, oo markii ugu horreysay laga iibsaday 50 milyan oo heesood. Tan iyo markii uu Steve Jobs dib ugu soo laabtay shirkadda, waxay ku dhawaaqday guulo wax ku ool ah iyo korriin aan xad lahayn. Sanadii 2007, waxay Apple dhabbada u xaadhay ama ku dhawaaqday tallaabo cusub oo hor leh, ahaydna mid lama filaan ah. Waa bilowgii iyo aasaaskii taleefannada caqilka ah ama smartphone-ka, iyadoo fikirka iyo farsamada intuba ka soo maaxdeen Steve Jobs. Bishii Juun ee sanadii 2007, waxay Apple iib keentay taleefankeedii ugu horreeyay iPhone, kaasi oo noqday mid soo jiitay shucuurta ama indhaha dadyowga adduunka. 3 bilood ee ugu horreeyayna, tirada moobillada ay iibiyeen waxay gaadheen 1.4 iPhone. Intaa wixii ka dambeeyay, wuxuu noqday inay si joogto ah u soo saaraan moodelo cusub sanad kasta. Sanadii 2011, waxay Apple ku dhawaaqday in madaxii sare ee shirkadda, Steve Jobs, uu kansar u dhintay, oo ahaa aasaasihii shirkadda, lahaana dhisaynka iyo fikradda waxay soo saarto shirkaddu. Haddaba, markaad garowsato, naftana u sheegto wax kastoo dhinac kasta kaa xiga inuu sameeyay qof adigoo kale ah oo aan garaad iyo caqli toona ku dheerayn, waa wax jira inaad nolosha wax ka beddeli karto ama ku soo kordhin karto wax cusub. Haddaba, tani waxay tusaale cad u tahay, kana marag kacaysa guusha, horumarka iyo isbeddelka qofka bini'aadamka ah inay tahay mid ku xidhan naftiisa. Inuu qofku haysan dhaqaale maaha cudurdaar, waxaana tusaale kugu filan in shirkaddii ugu weyn uguna qaalisan koonkan aynu ku noolnahay lagu bilaabay lacag yar oo 500 ah, taasi oo weliba amaah ahayd.